tahay qof rabo inuu iscayiliyo oo kushkush uu noqdo oo cayil qurux badan lahaado haday jawaabtaadu tahay alaabtan ka faa'iideyso. ma tahay qof miisaankiisa hooseeyo oo rabo inuu miisaankiisa kordhiyo haday tahay jawaabtaada ka faa'iideyso. ma rabtaa jirkaaga inuu qurux badnaado oo jir qurux badan aa yeelatid oo bucbuc ah oo kushkusha oo kaaliska araga oo dhalaalayo. jawaabtaadu haday tahay ka faa'iideyso. waa alaab maasha Allah tabaarakallah oo dhan walba ka dhameystiran 3 maalin oo kaliya hadii aad cabtid sheenadan waa iska dareemaysaa miisaankaaga uu kordhaya, jirkaaga uu qurux badnaanaya, dhan walba maasha Allah waa ka dhameystiran yahay. hadda sheenadan ka daba taga walaalahayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran najax kitchen and beauty soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin soo dhawaada. waa walaashin oo mar kale inii 10 kale cusub ayaa maanta inii wada. waxaan inii wada cabitaankii la isku cayilinayay muddo 3 maalin gudaheeda oo result fiican lagu arkayay. insha Allah ka daawada qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay iyo sidaan u sameeyay. bismillaah cabitaankeeni ayaan shiidanaynaa walaalahayga. waxaan soo qaatay makiinada cabitaanka, waxaan ku riday hal xabo camba oo aan soo jarjaray. cambahana qolofka kama fiiqin waayo qolofka fitamiinaad ayuu leeyahay. sidoo kale walaalahayga waxaan ku shubay hal xabo moos oo aan soo jarjaray ayaan cambaheeni ku darsanay. sidoo kale waxaan ku darsanay avocado jaba oo aan soo jarjaray ayaan ku shubay. sidoo kale waxaan ku daray hal qaando caano boora, waa caano booraha gasaca oo caadiga ah ayaan isticmaalay walaalahayga. sidoo kale waxaan ku riday baraf yara oo aan fridge-ka aan ka soo bixiyay. waxaan kaloo ku daray sonkor. intaan ayaan isku soo shiidanaynaa iyo waxaan ku shubay hal galaas oo biyo ah ayaan ku shubay walaalahayga. waana galaas weyn ayaan isticmaalay. biyaha qiyaasta adiga ayay kugu xiran tahay. intaan markii aan isku soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. xagga iyo makiinada ayaan aadaynaa walaalahayga. markaan soo shiido aan isku soo noqonaynaa. cabitaankeeni waan soo shiiday walaalahayga. waxaan soo qaatay baaquligii aan ku miiran lahaa iyo miirihii. hadda cabitaankeeni ayaan qashinka ka saaraynaa maadaama uu cambaha qashin leeyahay. cambaha qashin ayuu leeyahay. qubkii ayaan ku shiiday waayo qubka waa fitamiinaad fara badan ayaa ku jiro maasha Allah. waxaa qubkaaga ku shiida kabacdina iska miir, wax dhiba ma lahan. marka inta ayaan miiranaynaa. alaab kale oo yar oo easy ayaan gadaalka isticmaali doonaa oo cabitaanka gadaal uga darsanaynaa. cabitaankeeni walaalahayga waan soo shiiday maasha Allah. isla makiinadii ayaan ku celinayaa hadda insha Allah. alaab kale oo iska yar oo easy ayaan ku darsanaynaa. sidaas smooth-ka ayuuba noogu soo baxay maasha Allah. lagama sheekeyn kara hadda sheenada nafaqadeeda. adinka ayaa la idinka rabaa jawaabteeda. markaa soo cabtiin igu soo warceliya insha Allah. ilaahay idinkiis waana ku faa'iidi doontiin. alaabtan waa alaab fadhiso oo la hubo maasha Allah. waxaan ku darayaa walaalahayga ice cream ayaa ugu dambeyntii ku darsanaynaa. ice creamka waa midda faniilada ah. faniilada kaliya midda ka samaysan waaye. midda mixiga ma aha, waa midda faniilada kaliya ka samaysan. meel walbana waa laga helayaa. hadda ice creamka iska caan soo maahan. meelaha supermarketyada meelo gooniyo lagu gadaa jirto. faniilada waa taasaa walaalahayga. faniila ayaa ku qoran. midaas ayaan isticmaalay. intaan ayaan haddana makiinada ku celinaya. waa isku soo noqonaynaa. hadda ku soo baxo waa isla arkaynaa cabitaanka xagga makiinada aadayna maasha Allah. cabitaankeeni waan soo shiidanay oo makiinada waa ka keenay. galaasa soo qaadanay, baraf yara ku ridanay. hadda cabitaankeeni waa kaasa maasha Allah. smooth-kaas ku soo baxay. lagama sheekeyn kara hadda sheenadan. waa sheena yar oo hadda maasha Allah oo cajiiba oo dhan walbana ka dhameystiran. waxaa waaye strooga gasho tartiibtaada u cab waaye. waa nafaqo yar oo socoto oo hadda cagale waaye. cagay leedahay nafaqadan. ma aha nafaqo ma tahay. waa alaab yar oo smooth oo gaala iska araga ku qadee, ku quraaca, ku cashee 3 maalin oo kaliya. haddaa intaad qadeysid aa cabtid adaab iska dareemaysidba. sheena yar waxaa waa aad iyo aad u fadhiso oo maasha Allah oo dhan walba ka dhameystiran. jirkiina wuxuu ku noqonayaa jir qurux badan oo kaale iska araga. adiga dhanna waa iskeenaysaa. waxaa noqonaysaa bucbuc. meelna kama buurinaysid, meelna kama caatoobaysid. adiga dhan ayaa hal mar iskeenaysid oo jirku dhexgalaya. waa nafaqo socoto hadda lugo leh. gacmo xataa ma lahan, lugay leedahay. walaalahayga ka faa'iideysta. waa alaab yar oo sahlan. waxaan jeclahay wax walba wanaagsan inaan la share gareeyo. soona dhawaada hadda meel walba aad joogtiin dhammaantiin insha Allah. cabitaanka waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontiin. haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar si aad daawadaha kuwaad u noqotid gambaleer kariix. tan kale casharka walaalahayga ii share gareeya
oo qof asxaabtiina la wadaaga, qof walba ha share gareeyo, like ta saara, commentigiina kasoo dhiibta, ra'yigiinana waa inoo muhiim. soona dhawaada hadda meel walba aad joogtiin. Alaabtaana waa alaab fadhisee ka faa'iideysta, waa alaabtii kushkush lakal kushkush lagu noqonaye, waa nafaqo socoto. hadda cagale waa cago luga xataa malaha, cagay leedahay, cago iyo luga waa isku mid waa cabitaan nafaqo badan walaalahayga oo dhan walba maasha Allah ka ah. haddii aad ka cabanaysid oo kala caatanimo ka faa'iideysa alaabtan, waa alaabtii kushkushka lagu noqonayo oo dhan walba ka dhameystiran. haddii aad ka cabanaysid tabar darro iyo nafaqo darro iyo waxyaabahaas hadaa ka cabanaysid kale iyo fitamiin la-aan, alaabtan ka faa'iideyso waayo nafaqo ayaa ka buuxdo. haddii aad rabtid oo kale miisaankaaga inuu hal mar kor usoo kaco muddo 3 maalin gudaheeda ayaa result fiican ku arkaysaa alaabtan haddii aad cabtid. oo maasha Allah markaa qadaysid oo kale aad dhakab isku siisid, haddii aad cashaysid oo kale aad cabtid, haddii aad quraactid oo kale aad shiidatid, waa alaab hadda maasha Allah oo dhan walba ka dhameystiran, oo jirkiina wuxuu ku noqonayaa jir qurux badan oo kaale iska arag oo dhan walba ka dhameystiran, oo bucbuca oo kushkusha. waxaan ku dhahay gacmaha iyo lugaha xataa haddii aad caato ka tahay alaabtan isku nafaqay oo cab. waa alaab jirka dhan ka dhigayso juuro oo dhammaystirayso oo kaale iska arag ka dhigayso maasha Allah. waana nimco Ilaahay, intaa haysanin Allah ha siiyo, intii haystana Allah ha u siyaadiyo walaalahayga. soo dhawaada hadda mar kale. alaabtan waxaan ugu talagalay asxaabta caatada. asxaab badan mar walba isoo weydiis walaalo cabitaan hadda hal maalin xataa 2 maalin lagu cayilayo noo soo gali. marka maasha Allah ka faa'iideysta hadda walaalahayga. aniga waxaan ku shaqeeyaa dhiirigelintiina. insha Allah waan ku mahadsantihiin mar walba sida ii dhiirigelisiin, commentiyadiina quruxda badan waa ku mahadsantihiin walaalahayga. insha Allah soo dhawaada. haddii aad janaalka ku cusub tahayna subscribe saar si aad daawadaha ku noqotid gambaleel kariix. salaamu calaykum.